Muslim iyo Soogalootiga ayaa madax u noqonaya qayb ahaan magaalooyinka ugu waaweyn dalka Mareykanka haddii ay natiijada codka la dhiibtay dhinacooda aado. Cumar Faatix iyo taageerayaashiisu waxay u gala fadhiyaan guulka helidda ololahooda doorashada duqa magaalada Minneapolis, taa oo haddii ay dhinacooda u dhacdo taariikh cusub dhigi doonta, isla markaana Cumar Faatix ka dhigi doonta Muslimkii iyo Soomaaligii ugu horreeyay ee magaalo cariga Mareykanka ku taal duq ka noqda, midaas oo marka loo eego marxaladda siyaasadeed ee Mareykanku haatan ku jiro iyo colaadda ka dhanka ah Soogalootiga iyo Muslimka ee dunida galbeedka ka dhigan guul aan si fudud ku iman, ha yeeshee baal sare ka gelaysa taariikhda bulshada Soomaalida ah ee Mareykanka iyo guud ahaan muslimiinta tiigsanaysa mustawayaasha sare ee waddankaas. Lama hubo docda ay jirto natiijada doorashadani oo sida xoguhu warinayaan saqbarka caawa ka hor lama ogaan doono cidda guusha heshay. Labada ducood ee ku baratamay doorashada Minneapolisna waxa ay rajo weyn ka muujiyeen guushooda tartanka, inkastoo aysan jirin saadaal rasmi ah oo tusaysa cidda guusha loo tirinayo. Dhinaca kale, doorasho mayortii abid ugu xiisaha badnayd ayaa iyana ka socota magaalada New York oo ah xarunta ay ku nool yihiin dadka ugu tirada badan magaalo ahaan dalka Mareykanka. Loolanka u dhaxeeya Sohraan Mamdaniga Muslimka iyo Soogalootinimada Faatix kala wadaaga iyo ninka lagu magacaabo Andrew Cuomo oo Donald Trump la doonayo duqnimada New York ayaa si adag ugu baratamaya xilkan. Sohraan Mamdani oo sameeyay olole xoogan ayaa si weyn loogu saadaalinayaa guulka helidda doorashada New York, inkastoo Trump New Yorkeriska ugu baaqay inay doortaan Andrew Cuomo. Haddana waxaa dadka doorashadan la socda oo doorasayaan in rayidka magaaladani codka ugu shumeen Mamdani oo ay maslaxadahooda nololeed qorshihiisa ka dhex arkaan. Sohraan Mamdani waxa uu ku ololeeyay inuu New York nolosheeda ka dhigi doono mid raqiis ah oo cid walba ku noolaan karto. Ogow, magaaladan waxaa loogu yeeraa xarunta maalqabeennada, taasoo ka turjumaysa inaysan u fududayn in dadka danyarta ahi ku noolaadaan marka laga hadlayo qiimaha sarreeya ee nolosheeda. Waana qorshahaas kan ay u riyaaqeen dadka ku nool magaaladan sida ay xogtu warinayso. Codkarnimo, dhexgal bulsho oo naadir ah iyo qorshayaal cadcad oo uu ka leeyahay horumarinta iyo maaraynta nolosha magaaladan ayaa noqon kara tiirarka guusha Sohraan Mamdani oo ah Muslim ay dhaleen lamaane ka soo kala jeeda wadamada Uganda iyo India. Donald Trump oo ninkan ugu yeeray Shuuci iyo Muslim xag jira ayaa ka codsaday dadka New York inay doortaan Andrew Cuomo oo isagu aan xisbina ka tartamayn. Waxa uu Trump ku goodiyay inuu isagu soo faragelin doono maamulka New York haddii Mamdani la doorto, halka uu sidoo kale ku hanjabay inuu magaaladan ka goosan doono kabka dhaqaale ee heer federaal haddii la doorto Mamdani. Hadalhaynta ugu weyn ee warbaahinta u janjeerta dhinaca xisbiga Jamhuuriga iyo xukuumadda talada haysa waa murashaxiintan da'yarta ah Muslimka ah ee doonaya madaxtinimada magaalooyinka dalkaas, kuwaas oo ay ololahooda ku fasirayaan mid ka dhana jiritaanka Mareykanka.